أبي الله يرحم الراحمين نحن إسبراني كون سجال بقول كون سجال بقول تواتني السديدي ودي لاي قبل كيران نادي قمت بعض السوقاتي وهو عيارتي فنية وأهدي فينسكا نمبر أفر نمبر شن أو مدح مل أنا لقيت فكرين كون سجال بقول توات سجال كي وحو مارتا كقيمة نقدي حولك قرنك الصوماليات وحونا مارتا عيارها صورك إلي حولك قرنك توات سجالكي all Arab Games عياري عرفت وقت كان لو قبتي وتاريخ كبدا عقد الصوماليات marka ugu horeysa final ay yimaado xul qaran oo noqday مندفع وهجمة ثانية وفي الجول هجمة بيسجل الصومال الهدف الأول أبي wax badan aan soo qareebnay national team ilaa iyo muddo ku jiray ciyaartooy naadiga madbacada u ahay koob jarabdaan soo qaadnay horyaalna la qaaday alxamdulilah maantana waxaan soo booqday aan uga mid caruurtiisii oo ka geeriyooday tacsiida kadib macalinka waxaa laga galay labada jilbood oo ma aragtay dhaawacyo qaranka ay kasoo gaareen qalinkii macalinka lagu sameeyey ayaana dhibkii ma aragtay ugu sareeyay oo kasoo gaaray kabacdina macalinka waa uu seexday dhibaatooyin badan iyo xanuuno kabacdina macalinka allah ayaa naga jeclaaday wuuna naga geeriyooday allah u naxariisto macalin cabdi abee xaajo xaaskiisaan ahay isagana wuxuu dhihi jiray weligiisa dalkeen u halgamaa dalkeen waan dhiig u bixinaa dalkeen saan u ilmaha hataa wuxuu ku cadaadi jiray war balooni dheela war cayaartooy naqda war dalkiina u halgama war dalkiina u shaqeeya oo weligiis dhihi jiray sanooyin oo jiifi ma hataa bilooyin ma aha wax dawlad ahoo soo kor istaagiyo ninkan wadanka intii telefishin intii meel walba meel lagu soo deyni malaha waan laga warhaayay asiga mugo hadda ilaahu u raxmado naxariista janna allah siiyo أبيه مركو دمناي وحن فيلاي أسخر إن الله سوبنايو الحمد لله الحمد لله أنا جا أوجوجنا أنا جا ما أنت أبينا أسطورني ما أنت عد ما أنت نوح نوش شيء كرتو ليه كرتو ما أنت أبي حاجة مركي للدوجاي أنقرب استاجن أمو حاسة أقبل ليه جرت ليه كرتو إن يرى سومالي ما هنا عد كلو ما أنت دبلد أو ما أنت وحك شيء كرتو برنامج كيسة وحك شيء كرتو ضد أصحاب تيسة أو خاص أكو بدو وضع عيار جيران أو وحو قبتين أو سهل جمي إلى هذا قرب كنا تاجن ويجران ضد كاس أجري حسنات إلى كسيو war anaga yaan isxaqirin aan anaga isguwaabino aan marba mar ka dambe xaqiiqda aan ka hadalno sababtoo waa haliyeeyo Soomaaliyeed because shalay qofka markuu fiyoona wadanka oo difaac because anaga waxaan ciidanka waxba kala midnahay sababtoo loogada markaan aan ku wadana inta xidigta waxaan kula dagaalmaa nin kale ma garat marka dhaawac uu soo gaaro waxa uu soo gaaro inuu aan dhilahay dawladda iyo qof walba oo qabad geli karo inuu maarta dadkaas wax u qabtaan wala waxa la dhigi jiray sanadkii ugu dambeysay abee lugtiisa saaf gal ka soo baxday la mood meel walba lagu dhahay meel walba waa lagu hayay laakiin hayo muxuu tarihe muxuu maanta abeena maanta uu aaneynayna inuu qabri u galay u geeriyooday maxay tahay wax markay ka yartahay 8,000 aan ka yareen waa 8,000 dollar oo in loo qaado indii loo qaado la soo qaal neerfaha laga sheegay inta waxaan u aaneynayna ama aan tabanayna dayacaad la dayacay oo maanta dawlad ee dayacday inuu abeena maanta gud ugu jiro anaga dawladda uqdadaas oo qabnaa waan u haynaynaa ila ninkii maanta nan ugu bugooban jiro oo dhihi jiray qarankeena wuxuu qabta qarankeena saan u yeela ani maanta tii maanta shaqada aan ahay iska dayo ilmeyga sports aan baro sidii maanta abeega la yeela anu waa la yeelaa 8 cunug aan u dhalay shan waa iga dhimatay 3 ifka ugu nool ilma kale waa jiraan 2 gabdhood 2 wiil oo 2 bax kale ah ifka intay joogto 7 waa aabahayga siduu ahaan jiray ani ma naqan karo waxaan ku naqan karin waxay tahay aabahayga wuxuu soo arkay dawlad wax uu qabanayso hor uu soo arkay markuu jiilkeenu ku jiray nidaam dawladeed uu soo arkay ani maanta aan kula hadda saacadan aan kula hadlaayo maamul dawlad waaba ka uqdadeysana sports ha ahaado
dawlad ha loo shaqeeya ha ahaato dhinac walba ay kasoo gashabo waaba ka cuqdadeysana ilan aabahaygii ani dhali oo intaan soo halgamayay oo hataa noloshiisa iyo ilmihiisa inuu u gooyo iyaga dartooda ay ahayd ee hataa niyow ilaaha u naxariistaa soo dhihi waayeen dawladda waxa uu baaqi lahaa ilan tan anaga hadda waa nagu dhacdaybo ilan maanta gamuun fare ka baxay soo laabasho malaa la dhahay anaga aabahayna tan wuxuu ku dhacay wax u qornay ahaayeen wuxuu ku dhacay waa dhaceen laakiinse dadka hadda ka dambeeya asi dadka hadda ka dambeeya ha ogaadaan markaan intaas Soomaali weyn waxaan u sheegaa dadka walaalihiina ee dawladda ha ku haleenna dawlad la isku haleen meeshan ma taagnee dadka walaalihiina waxa u qaban kartiin oo awoodiin u qabta هلا ku soo dhawaada dukaanka caanka ee Nilis Furniture Design Anilis Furniture Design waxay idiin soo bandhigayaan ololaha cusub ee bisha November gaar ahaan dadka isguursanaya oo doonaya inay gurigooda alaab cusub dhigtaan